همبلي بالنا عيد مبارك وهندرنا عيد مبارك همبلي دي عيد مسلمك ملك استوجوغان با وحلينا همبلي إلهي سبحانه وتعالى سنة كيسة إنه نبضح إنه قارسيو waxaanu hambalyo gaar u dirayaa ciidamada qaranka sida ee Soomaaliland Soomaaliyeyaasha xaq u dirarka ah ayaanu dirayaa waxaanu dirayaa dadka reer Soomaaliya meel kasta joogaanba waxaanu sheegnaa dadka reer Soomaaliya meel degantayba inay Soomaali u baahan tahay nabadgelyo u baahan tahay horumar u baahan tahay caafimaad u baahan tahay shaqo u baahan tahay magaceedii sharafteedii inay soo cesho u baahan tahay aan u baahnayn dhiig iyo tolaay iyo wadadii lagu jabay ee qabyaaladii in dib loo qaado waxaan dadka reer Soomaali meel deganta u sheegayaa inay Soomaali hilib qura tahay cad qura tahay ay tahayna inay ixtiraamaan ay tahay dad dhiig iyo ka dhaxeeyaan wada dhalasho ka dhaxeeyaan u baahan inay subxaanahu wa ta'aala hoggaan wanaagsan siiyo ilaahay muslimka oo dhan hoggaan fiican siiyo maanta nabadgelyada Soomaaliya haysata dhul badan oo muslimka aanay ka jirin waxaa leenahay nabadgelyada aan ku mitidno inta kale Soomaali degantayna aan gaarsiino hadalkaygii maalintii dhaweeytay la bedelayna horta wax hadal bedela yahuuda jirta oo ilaahay quraankiisa ku sheegay in yahuuda hadalka bedesho hadalkaygu wuxuu ahaa reer awdalow inagoo intaas qof inala jooga oo reer Garowe reer magaalada Boosaas ah ay 1 milyan oo dadkii ay ku dhacay tabaalada loo ururiyay ayay inoo quuri waayeen marka waxaan isbarbar dhigay wanaageena iyo xaasinimadooda aanu cid halalaaya ma oran ninabada ka shaqeeyanahay xaqle tooshi SSE waxaan dadka ka shaqeeyay khaatuma waqti shaqeeyanahay dagaalkii cigaal lagu qaaday dadka shaqeeyanahay nabad baan ka shaqeeyay aniga abahay nabad baan ku sumtanahay marka hadalkii la bedelin ilaahay laga boqo waxaan leenahay dadka la ka kaca laascaanood ma xidoon si qaxoonti noqoto ولين أدوك لما أريد اللي يجريه نسوقه عبدمر خوكعة وسوق حق جرو وكسوقه إلهي قحوتي كما يا سبحانه وتعالى نود بليهن عارف ما لي ما طبعا كي سنة ضيت شوفتي سومالنا وادي أركيس مقعد هرمرتي إسكولد جامعة لها مركز لقول كنا هبابيننا قبيل وده كان لقول دجال مايو وحلا لقول دجال اللي هرتشوا والفتسي الدنيا غير جروه إن بفرسون هلان إلى 60 كيلومتر بانو باهنا بيقالة كوي داهين 60 كيلومتر تتكلم هذا دافعية وحكوا ماشي كوتشرا متشرو ما هو على هذا يسامحوا أنا والسامحان تدقال مرة نبض مرة صومال نبض مرة إلهي صومال نبض كوش عليه سبحانه وتعالى إلهي هو قام في عناصيه إلى هذا إلهي قال هذا إيش شيء حكت القاضو ما أنت وحنا وديارنا عنك جيسنا أنت صوماليا سن بدو يهشوا شرفت ودوس عشرين وحاليا Soomaali meel kasta waa iscafido ilaa qalbigooda haysiyo dadkeeni ay ku dhacdeen masiibadu duufaantu waxa la yiri 1640 reer ayaa beerahoodii baabeen baa la yiri oo noqday baad dadkaasi waxa u baahan yahay gargaar dadkeen wuxuu naqaana xun baynu nahay marka hore waan carnaa ka bacdi waa iska shuuqnaa waxa weeye in dawladna waa tan madaxweynaha ku xigeenkay waxa weeye in dadkaas loo gurmadaa beerihiisa u soo ceshan lahaayeen qof kastaba raaska sidii isku soo noloshiisa u soo celin lahaa laga shaqeeyaa qof kasta reer Soomaaliland ba haddaynu isku qorno hal dollar qof kasta Soomaaliland dadkaas waxbay u taraysaa marka macaawinada hala dhameeyaan leenahay yaan laga jabin yaan laga jeedsanin tan ceelafeyn waxa leenahay ceelafeyn dhibaatada familigaas waa qoys baa taas wada dhalay arintaasi waa fidmayn shaydaan baad ka shaqaystay si mugla loo galiya yaani ha isku dinina ku turka keentay waa la yiri iyo mu'amalaad iyo been iyo social media beentiisa iyaan isku dilin cid ku duulisa ma jirto cid caare ku duulisa ma jirto cid kale ku duulisa ma jirto waxa damadaala ilaa sidii madaxweynuhu sheegay waxa imanaysa guddi qaran oo mugle oo miisaaman oo arinta wixii inaga xumaado dhan hagaajinayso cadawga maanta loo taag laayahay qiiqa yar bay soo eeganaysaa qiiqa yar ee dhexdeena marka waxaan leenahay qiiqa inaga damiya qofkii dhintay qof loo dilaa ma soo celinayo inta nool ha loo taliyo macaawin horumar hala keeno dadku waxay isku dilayaan waa macaawin waa resource waxaan jecelahay inshallah taa inaan keeno horumarkii barashadkeeda horumarka la keeno marka waxaan leenahay nabad ha ka shaqeeya cuqaasha
iyo caaqiliinta iyo salaadiinta magacii qaatay tradition leaderska habkeedii la kaalay ha ka macaashina kolba inaan yaro dibada joogaa iyo inaan yaro dibada joogtaa iyo inaan lacag idin soo dirdirin kuwa dibada waxaan leenahay dhulkiina ha iska gubina dhulka joogtaan ma lihidin waa la soo tarxiili doonaa ee dhulka ku soo iman lahaydeen ha iska gubina baan leenahay oo wanaag ka shaqeeya baan leenahay iyagana dadka dibadda jooga oo dalkii waxaa laga duminayaa dibaddii baa laga duminayaa waa nasiib dara taas dadka masaakiinta degan dalkooda ha barakicinina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.